بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاسترا فيكتوريا سيمبر غاياشا حالي تولي الحمد لله. waxaan dib u soo celinayay memoriga taariikhdii Soomaalida haday Israel tahay haday tahay siyaasiyiin haday tahay shacabka Soomaaliyeed soo u badan yahay ayaan doonayaa maanta inaan nila wadaago dhibta Soomaaliyeed haddii aan ka soo bilaabno dhibta Soomaaliya haysato waagii daraawiishta waagii biyooley la dilay shaawees la dilay waxyaalo badan rabaa inaan ka hadlo dhibta Soomaaliya markaan kala dhigdhigo dhibta Soomaaliya haysato waa ma jirtaan dhib kale ma jiro tan iyo 60kii tan waagii musuqmaasuqa mi jirtiinayna deegidigooda ma ahane 100 kilomitir oo Ali Ciise Usmaan iyo Umar Maxamuud ragam Maxamuud Salamaanka waa intay Soomaaliya ka degi laalahay haddii maanta aad tagtid dhulka ma jirtaan gaalkacyo dheh boosaaso dheh garowga dheh raxweyn kuma noolaan karto waa lagu dili waa la boobi hawiye kuma noolaan karto isaaq kuma noolaan karto waan ognahay cunsuriyadda iyo dhibto ka soo gaaraysa haddii aad gaalkacyo nuskeedii hoos u soo degtido habar gidiroo galmudug ah waa lala noolaan karaa waa lagu noolaan karaa waa la mari karaa waa lagu noolaan karaa diyaafay leeyihin wax walbay leeyihin mareexaan wuu ku badbaadinayaa waad ku noolaan kartaa wuxuu ku nool yahay ilaa webiyada wax walba ogaadeen baa ku heliyey ogaadeen kuma badbaadinayo kilinka shanaad kulama noolaan kartid garissa kulama noolaan kartid nairobi kulama noolaan kartid kula dagaalamaya dagaal kula galayaa kismaayo maanta xoog ku haystaa cid la noolaan karto marka hirshabeelle haddaan usoo noqdo lagama yaabo hirshabeelle inay daafeed iyo afgooyi kusoo duusho beledweyne way u dhowday ciidan ay lahaayeen wax walbay lahaayeen xamar ay ka dagaalamayeen waa la noolaan kartaa hirshabeelle webiyaashay degaan waa lala noolaan karaa tijaarad wax walba waa lala samayn karaa waxaan rabaa inaan u galoon taariikhnii sheego dalka Soomaaliya la dhaho kelmadda musuq maasuq waxa ugu horeeyay madaxweyne musuq maasuq iyo qabyaalad ku shaqeeya ee dhib geysto Cabdirashiid Sharmaarke iyo ninay yiraahaan daahir dhagweyne oo Usmaan Maxamuuda oo official labor loo dhiibo oday zaani ah waa ku soo gaaray ilaa waagii kacaanka hablaha yar jidka ka gurto waa ninkii dhahaan daahir dhagweyne official labor haysan jiray waagii Cabdirashiid hal nin ku jiray Cabdisaaq Xaaji Xuseen oo ahaa una persona intellectuale gidigoodana intii musuq maasuq wada hadduu Cabdirashiid yahay hadduu Aadan Cabdulle yahay hadduu yahay daahir dhagweyne intoodaba hal family ka guursadeen reer Muuse Mataan oo Ciise Maxamuud oo la garanayo hablo famous ah ka ah Soomaaliya tani waagii Soomaaliya ayaa Aadan Cabdulle xataa lagu daray nin walba ma jarteen ku arko inuu siyaasi wax qabanayo inan buu hoosta ka geliyaa fataalnimada way ku dheeriyeen waxaa jiray bodyguard meel la dhaho boodgara la dhaho station aha waxaa joogi jiray saajimo mareexaana dad wax bartay ah college Ferrari iyo ka soo baxay mareexaan maaha maanta farmaajo ninka uu haysto inuu mareexaan yahay يسياد بريحته مريحان ماها نمانكا ولا سياد بري ولا فرماجو محاد عايدة دالكودي قدو ولي وعوماني مركا waxaa la oran jiray deegaanka dadka la dego lano mareyxaanka waxaa la oran jiray gawaabweyne gobra haween loo yaqaan gawaabweyne jiray waxaa kaloo jiray kasarguudo oo waxa ka dhashay wiilo nin la oran jiray oo loo haystay berigi dambe inuu Salaaxdiin dilay ninkii Masriga ahaa labada qabiil
weligood iyagay mareexaan iskuma dhicin waa dad wada nool wiiloo habeenkii calanka la saaray nin geesi oo ahaa ayaa lagu dilay gaal shiro lagu dilay habeenkii calanka la saaray marka nimankan mudug ka yimid ee dibadda ka yimid berigii waxaa jiray SYL dib haddii taariikhda loo raaco waxay ahaayeen xisbi uu fadareeyey isticmaalkii talyaaniga oo asaga dad ku daray isla markiiba inta ku hadasho afmaay reer xamar iyo carabta xisbigaa way diideen astaantii markii la bedelay xisbiga SYL haddaad si fiican u fiirsatid waxaa ka muuqato Cristo cross baa ku taallay bisha iyo cross ayaa ku taallay marka xisbigaa isla markii uu fadaroobay waxaa la suubiyey xisbiyo xisbi la dhaho haka DM aa la dhahaa calankoodu cagaar buu ahaa calankoodu cagaar buu ahaa waxaa ku qornaa laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah calanka xisbiyo markaasay soomaalida inta kale dir iyo wax walba iyo reer haween iyo reer xamar iyo carabta bilaajo degto wax walba ha noolaatadaa la oran jiray xisbigaasaa la wada galay xisbigii waa lala dagaalamay SYL waxaa la wareegay dad berigaa lagu magacaabi jiray magaca nii sheegay ee dadka mudug ka yimid iyo gaalkacyo ka yimid kulubey yaa la oran jiray kulubey wixii kor ka yimaado dhan gaalkacyo wixii ka yimaado waxaa loo aqoon jiray kulubey xisbiga SYL waxaa la oran jiray kulubey tixraaca ah rag saraakiil waxbartay Oxford ah Cambridge ka soo baxay ayaa waxaa nooga yimid Somaliland waqooyi markii midnimada la sameynay saraakiisha waxaa ka mid ahaa Caynaanshe Ismaaciil Cali Bokar ka mid ahaa Axmed Ismaaciil ka mid ahaa Gaalshir Hayste Qorsheel baa ka mid ahaa dadka waa la boobay garaado iyagoo sito ayaa laga kormariyey maxamed Abshir Hamaan Jalaal Daawud iyo gabayre asna iska maskiin oo gabayre nin saahay ma ahayn wuxuu qabay islaan asna inamitana marka waxay ahaayeen dad la soo malmuluqo talyaaniga aafi administration fiduciaria lagu suubiyahay haddii aan usoo noqdo baraawe xataa daris male waxaa la oran jiray buundo baraawe la oran jiray baraawe dad mutacalimiin ahaayeen culimo leh imprenditorial leh sheekh leh makaan leh sheekh Awees iyo sheekh Oyay watay kasoo tageen baraawi biyo la yimaadeen marka berigii la leeyahay ay daaroodka hadda yiraahaan sheekh Awees raxweynta waxaa la yiri tusbax dheh tasbiixay dheheen kelmadda ma jirto markuu arkay imaamadaha daraawiishta sheekh Awees wuxuu amray dikri salaama in dadka lagu soo dhaweeyo salliga nabiga ku jiro markaasaa loo sheegay in nimankii yimid daraawiishta ay dadka laayayaan sheekh Awees wuxuu ku dardaarmay in gurigii lagu aaso waxaana dilay ninka la yiraaho Ismaaciil Mire sayidka seedigii ah oo dhulbahanta ah faraskiisu waxaa la oran jiray looshaan ninkaasaa gacantii ku dilay sheekhana salligiiyaa lagu aasay marka waa halka maanta dhulbahantay waalida ka heysta iyo daraawiishna ku baaba'ay marka waxaa weeyaan waddanka saa baaxadii u weyn Somaliland Soomaaliya ma haysato qabiilada Soomaaliya ku nool hadday raxweyn yihiin hadday hawiye yihiin hadday wax walba yihiin ma haystaan Somaliland waxaa haysato jifo yar oo aan u bixiyey Cali Ciise Cusmaan iyo Cumar oo majeerteen ayuu dhulka ka degi lahay raggaa majeerteenka waa dhibta maanta Soomaaliya haysata baaxada intaa leh waxaa weheliyo karo lala noolaan karin nimankaa ogaadeen iyagana ay meel lagula noolaan karo jirin kismaayo xoog ku jiro ay maanta naqdeen labadii Puntland ay naqdeen Jubbaland iyo
puntland marka waxa weeyaan dhalinyaradu mashaakilka ugu weynay soomaalidu maanta musuq maasuqa iyo fadarada ay ku jiraan iyo laaluushka la qaadanayo iyo fasuuqnimada iyo geerishaada iyo rag iyo dumar isku dhex qasan iyo waa caado nooga timid ma jarteen weeyaan suuraha iyo beenta la sheegayo barbugaanka la akhrinayo isku dirka iyo namiime fataan hadduu jiro khamri iibiye hadduu jiro giddii waxay ka timid mujirtiiniya ka timid dalku wuu iska deganaa dad culummo ah dad laga xukumo masaajidyada sheekh suufiya 4 kun isku imaado iyo marwaasi ahaayeen dadku bilaaj carab maxfalka nabiga lagu ammaani jiray waxaa noo yimid mujirtiiniya oo sheekh beenaalo wadato sheekh raamoole wadato oo suufiyo aan jirin wato ee dumarka iyo raggaba la kala saari karin ay dumarka ragnimo ku badan tahay ayaa fasuuq noqotay ee raggii madaxda ahaa la kala siiyey ilma calimataan waa garanaynaa hablihii calimataan waa la garanayaa waxay ahaayeen waa la garanayaa aadan cadde xaaskiisa iyo gabeere iyo kulli iyo waxay ahaayeen dumar minijiib gashta ee lala hadli karin ee askari dharbaaxayo ee fasuuq ee baararka liido ku jiro meelba ku jiro madaxna qabo maxamed abshir katiinad baa u xirneed maxamed abshirka generaalka la sheegayo katiinadaa u xirneed gaari marshiisu madax ka furan uu soo wadi jiray dadkuu jidka ku dharbaaxi jiray dadkuu si xun ula dhaqmi jiray way tuman jireen 24 saac waa la tumanaya villa Soomaaliya hadday tahay villa Baydhabo hadday tahay meelba hadday tahay klaabyada hadday tahay night club hadday tahay luchalo meelay dhahaana jirto la dhihi jiray Trefontana dadkani waxay ahaayeen dadkii la yimid fasuuq iyo namiim iyo maftaalad iyo xaasidnimo iyo cunsuriyad iyo qabyaalad la oranayo daarodismo raggii bilaabay weeyaan iyagana ku dhacday marka waxaan nii sheegayaa taariikhdiga barta hasta la Victoria sempre qaash ma salaam